بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada walaalayaal jumco wanaagsan meel walba joogtaan waa casharadeenna xisaabta cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay real number line waxaan baranaynaa xariiqa tirooyinka maangalka ah xariiqa tirooyinka maangalka waxa uu qoran yahay sidan waa xariiqan jiifka ah waxa dhexda ku jira eber dhinaca midig waxa jira tirooyin positive ah tirooyin togan dhinaca bidixna waxa ka jira eber waxa ka jira tirooyin negative ah tirooyin taban nambaradan ku qoran xariiqan ku dul qoran waxa loo qaybiyaa groups ururo tusaale laga bilaabo hal dhinaca midig markii la aado dhamaad aan lahayn groupkan waxa la yiraahdaa natural numbers tirooyinkii wax lagu xisaabsanayo waaye waxaana loo soo gaabiyaa xarafka n capital sida qaybtan hoos ka muuqata natural numbers waa laga bilaabo 1 2 3 ilaa dhinaca midig u wad haddii aan natural numbers kan aan eber ku soo kordhino waxa soo baxay group kale oo la yiraahdo whole numbers tirooyin idil whole numbers waa ururkii hore ee tiradii tirsimo natural number hadda aanu sheegaynay oo eber lagu soo kordhiyay sidoo kale haddii aan whole number kan aan dhinaca bidix ku darno oo numberka negative-ka ku soo darno waxa noqonaya in group kale oo la yiraahdo integers xarafka z capital ayaa loo soo gaabiyaa marka integersku waa ilaa 3 qayb ka samaysan yihiin natural number-ki waa ku jiraa whole number-ki waa ku jiraa qaybta negative-ka oo naturalki oo negative la raacsiiyana waa usii dheerta marka sidoo kale waxa jira urur kale oo la yiraahdo rational numberku waa tiro kasta oo ka imaatay laba integer oo la soo qaybiyay ayaa waxa la yiraahdaa rational numbers amba loo qori karo integers la soo qaybiyo ahaan loo qori karo marna fraction ahaan loo qoraa marna decimal ahaan loo qoraa decimal ahaan loo qoro waxa muhiim ah inay dhamaato amba ay soo noqnoqoto haddii fraction ahaan loo qoraan inuu hoose eber ahayn ayaa muhiim ah sidoo kale waxaa jira tusaale waxaad arkaysaa eber iyo hal hadda waxa u dhaxeeya half macna 0.5 ha u dhaxeeysa 0.5 fraction ahaan ay qoran tahay marka waa rational number waaye marka integer asigu ma laha fraction ma leh waa tirooyinka buuxa oo qaybta positive-ka qaybta negative-ka iyo eber laakiin laba tirooyinka u dhaxeeya jajabka hadii la qaato waxa ay noqonayaan rational numbers ururka kale waxa la yiraahdaa irrational numbers iyagu kuwan dhinacan hadaan ku qornay urur kasta ururka ka hooseeya waa ka weyn yahay waana is hoos tagaan laakiin kan waa gooni irrational numberku waa tiro aan loo qori karin laba integer oo loo soo qaybiyay waa rationalka cagsigiisa rationalka wuxuu ahay tiro loo qori karo laba integer oo loo soo qaybiyay laakiin irrationalka asiga ma loo qori karo laba integer oo loo soo qaybiyay loo ma qori karo hadii decimal ahaan loo qorana oo dhibacda ay jirto 0. something 1. something hadii dhibac loo qorana fraction decimalkaas wuxuu noqonaa mid aan dhamaaneyn ama mana soo noqonayo tusaale markaad radical 2 calculator geliso amba calculator geliso waxaad heli doontaa tiro decimal ah oo aan dhamaaneynin haddana aan soo noqonaynin hadda kan fiiri 1.4 waa radical 2 calculator la geliyo waxa soo baxaya tiradan ma dhamaanayso mana soo noqonayso haddii dhamaan laheeday waxaan dhihilaynaa waa rational haddii soo noqon laheed wax soo noqnoqo ay jiri lahaayeen waxaan dhihilaynaa waa rational laakiin mana dhamaanayso mana soo noqonayso marka waxaan leenahay waa irrational sababtoo ah dib markii loo celiyo fraction ahaan loo ma qori karo waaya dhammaan ururadan afartan iyo midkan shantan urur waxaa la isku dhahaa real numbers tirooyinkii maangalka ayaa la isku dhahaa marka real numberka waxay ka kooban tahay irrational number iyo rational number inta ka hoos imaanaysa marka shantaas urur ayaa waxay sameeyaan real number
ururka weyn ee tirooyinka maangalka ah wuxuu ka kooban yahay shantan urur: natural numbers, tiratirsimo, whole numbers, tirooyin idil, integers, abyoonayaashii, rational numbers waa lakabyadii, iyo kan oo ah labada wixii aan afartan ahayn irrational number. waayahay bal iminkana true and false. bal haddii aanu fahnay macluumaadka hadda, bal aan isku dayno inaan ka jawaabno su-aalahan. real number line horta noo soo qabo, waxbaan ka fiirsanaynaa. every natural number is whole number. warkaan sax ma yahay? natural number kasta waa whole number. natural number waxaa la yidhaahdaa hal wixii dhinaca midig ka jira natural number la yidhaahdaa. whole numberna waxaa la dhahaa markii lagu soo eber lasoo raacsiiyo. marka natural number kasta oo 1 iyo wixii ka weyn ah whole number ma yahay? haysay kula tahay true miya false miya? true sababtoo ah whole number waa laga bilaabo eber iyo wixii dhinaca midig ka jira. markaad eberka soo tagto naturalki waad sii maraysaa. marka whole numberka weyn, whole numberku naturalka wuu koobayaa. marka waxaan dhihi karnaa natural number kasta whole number waa yahay. whole numberka weyn, naturalka yar, wholeka la hoostegaya. su-aasha xigta, every integer is whole number. integer waa hadda halaa meeshan ku qoran. wixii inta ka muuqdo dhan waa integer hadda. kuwa positive-ka ah, kuwa negative-ka ah iyo eberta hadda halaa inta ka muuqato waa integer. whole numberna waa eber laga bilaabo ilaa halahan bis. marka ma dhihi karnaa integer kasta whole number ma yaha oo whole numberka ma la hoostega? false. integerku ayaa weyn oo whole number. waxaa jira some integers kuwa negative-ka ah integer way yihiin laakiin whole number ma ah. waxaa jira integer aan whole number ahayn. marka integerku qaarkiisna waa whole number, qaar kalena whole number ma aha. marka integer kasta whole number ma aha. su-aasha xigta, every integer is rational number. integerku waa inta halaan ka muuqata. rationalkuna waa laba number kasta jajabka udhexeeya haddii la qaato waa laba number kasta jajabka udhexeeya soo noqnoqonaya ama dhammaanaya markii la qaato ayaa waxaa la yidhaahdaa rational. marka su-aashaan sax ma tahay? sax waay, sababtoo ah rationalka weyn oo inta hadda ma halkan ka muuqata rational way tahay. wax kale u dheeryaho laba number udhexeeyana way soo geli doonaan. marka waa true. su-aasha xigta, every whole number is natural number. haye maxaad dhihi lahayd? whole number kasta waa natural number. whole number waa eber iyo wixii dhinaca midig ka jira. natural number hal laga bilaabo waaye. marka su-aashan sax ma taha? no, false. aad iyo aad baad umahadsantihiin. waa noo intaas cashirkeena maanta.